السلام عليكم أرضي إلى أنتم بكسود هذا برا أونلاين أكاديمي waxaan sii wadaynaa cashirkeenii geshmis zamaanka maanta waxaan rabnaa inaan si fiican u fahanno waa maxay geshmis zamaan shurda iyo zalim arkadaşlar hemen halkaa ku qoranno mawduucayaga waa maxay geçmiş zaman shurda hemen yazalım geçmiş zaman waa maxay maxaase laga wadaa micno ahaan af Soomaaliya geçmiş zaman waxay ka dhigan tahay fal ama wax la soo dhaafay maxaan idhi geshmi zaman waa maxay fal ama wax markaa lasoo dhaafay si aad u isticmaasho marka geshmi zaman luqadda turkiga waa inaad taqaanaa harmoniskii ereyada shaqalada loo isticmaalaya xarfii shaqalada abraaci aan soo barana buugga koowaad ayaan isticmaali doonaa si aad jumladda u samayso geshmi zaman maxaa ku dareynaa the oo aan ku dareyna markii waxaan idhi shaqalka u dambeeya uu yahay labadaa markuu yahay waxaan ku dari doonaa di dhibicle markay wadato waa goorma markii labadan shaqal iyo harmoniskan kusoo barano kuwan midkood uu dambeeyo oo waxaan ku dareynaa markii uu dambeeyo oo labadaa midkood do ayaynu ku dareynaa sidoo kale du waxaynu ku dareynaa oo dhibca leh markii kuwa dhibcaha leh labadan ay yimaadaan waxaan kusoo baranay kuwan baan nidhi buugga koowaad the markuu u dambeeyo di du du evet şimdi arkadaşlar intaa waa maxay waxa aan ku dareenno sida aan geçmiş zaman jumlada oga dhigno fal la soo dhaafay ama wax la soo dhaafay si aan oga dhigno waa inaan kuwa midkood ficilka ku darnaa evet tusaale mesela arkadaşlar şurada bir hemen örnek diyelim örnek waa maxay tusaale şunu hemen altına çizelim evet waxaan leenahay mesela aniga cunto ayaan cunay waa fal la soo dhaafay soo maaha aniga cunto ayaan cunay magacuyaalkan ku bilaabaynaa luqadda turkigana ben cunto maxaa af turki lagu dhahayay yemek cunidii waa maxay yemek bay dhahan iyana meegti baa ka tegeysaa ficilada gitmek oturmak yapmak meegtaa ka reebaysaa si aad tennis ugu darto maxay noqota marka ben yemek ye shaqal ku dambeeya waa muxuu ku yidhi haddii u dambeyso maxaa ku daraysaa di ayaad ku daraysaa ben yemek yedi bay kuu noqotay dhammaadkii maxaa keenaysaa ben maadaama la joogo ma baad keenaysaa ben yemek yedim ayaan leeyahay aniga cunto ayaan cunay tusaale labaad aan ka bixino annagoo keenayna magacuyaal cusub sen mesela adiga şöyle diyelim mesela sen xilli horaad seexatay adiga sen xilli hore waxaa af turki lagu dhahaa erken sen erken ficilku waa maxay uyumak yatmakna waa la micno waad isticmaali kartaan maxaan idhi yatmak waxaa kaloo la micno ah uyumak şöyle uyumak yazalım labadaa ficil waa maxay seexasho waxaan leenahay adiga xilli hore ayaad seexatay uyu maxaa u dambeeyo baa u dambeysa halka haddaad fiirisaan muxuu ku yidhi oo uu shaqalka u dambeeya hadduu yahay maxaa ku dareynaa do sen erken uyu do waa ku darnay kabacdi sen markii la joogo maxay qaadan jirtay ne sen erken uyudun adiga xilli hore ayaad seexatay üçüncü örneğimiz tusaaleheena saddexaad markan waxaan ka samaynaynaa magacuyaalka oo muxuu ahaa afka turkiga englishka he she it waxaa isku afka turkiga oo ayada asaga iyo noolaba oo baan dhehayni oo mesela waxaan leenahay wuu yimid asaga wuu yimid ayada way timid cali wuu yimid halkaa magacna waa keeni karnaa ali oo kadibna maxaan keenaynaa ficilka waa maxay imaasho gelmek waa naqaanaa ficilada dama et oo gel afartaa kee ku habboon baa u dambaysa daawaaba ku darnay maxay ahayd de oo geldi wuu yimid ali geldi cali baa yimid qaabkaabaa u dhehaynay devam ediyoruz bu arada oo dhammaadka waxba ma qaadanayn jumlada afraadaan ka samaynaa magacuyaalka dabcan waa bedelaynaa bis baa ka dhig innaga bis inay diyelim maxaan leenahay mesela bis waxaan isticmaalaynaa eve guriga ficilka waa maxay markaan aan keenayno waa bedelaynaa dönmek oo laga wado soo laabasho bis dön maxaa ku dareynaa afartaa kee ku habboon maxaa u dambeeyo baa u dambeeya saa daraaddeed
döndü baa ku dareynaa biz eve döndü bay kuu noqotay dhammaadka bis maxaa lagu darayaa geçmiş zaman ka baa la keenayaa biz eve döndük guriga usoo laabanay biz uyuduk waa seexanay halkaa waa ka dhigaysaa markay bis tahay bis yemek yedik qaabka ayaanu leenahay tusaale shanaad markan waxaan ka dhigaynaa magacuyaalka siis idinka siis waxaan leenahay ne diyelim siis ficil baa raadinaynaa ku habboon düşünüyorum para lacag baad hesheen ood ku guulaysateen ama shaqaysateen maxay isticmaalayaan para kazanmak ficilka ah kazan maxaa u dambeeyo ne saa daraaddeed zaateen shaqal ka dambeeyaa fiirinaya waa maxay muxuu ku yidhi haddii u dambeeyo yani idaanan dhibicda lahayn iyo maxaan ku daraynay siis para kazan bay kuu noqotay dhammaadka siis maxay qaadanaysay niz nuz deme devam ediyoruz tusaaleheena lixaad waxaan ka dhigaynaa onlar iyaga onlar ne diyelim mesela onlar iyaga af Türkiye ayay barteen onlar Türkçe af Türkiye barashada waa maxay öğrenmek öğrenmek bu ahaa meegti baa iska saarnay öğren afartaa kee ku habboon shaqalka u dambeeyaa eegnay maxaa ku dareynay öğrendiler waa intaa muhiimadda waa maxaa ardayd inaad taqaano magacuyaalka waxa lagu darayo been markii la jooga na sen markii me sen markii la jooga ne biz markii la jooga ke siis maxaa ku dareynaa niz nus afartaa kii ku habboon dabcan shaqalkee way kaanaysaa onlar markii la joogo laarleer ayaan ku dareynaa intaa waa maxay sharciga markii la joogo geçmiş zaman magacuyaalada waxay qaataan intaa ka sokow muxuu ku leeyahay si aad jumladda oga dhigta geçmiş zaman waxaa qasab ah inaad ku darto afartan midkood di do kii markaa ku habboon adigoo u eegayo habraacii aan ku soo barannay shaqalada qaabkay ugu darsoomaan jumladda onun dışında arkadaşlar maxaa halkaa dheer waxaa idin raacinayaa fiiro gaara waa maxay fiirada gaarku grammarkan wato shurda yazıyorum halkaa baa ku qorayna waxaa jiray sidoo kale eraya aan ku soo barannay buugga koowaad kuwa oo ahaa fıstıkçı shahab waan ku koodgarayn jirnay shahabkii lowslaha ahaa markaad fiiriso kelmadahan shaqaladayaan dhihin xarfaha u horeeya shibanayaasha markaad soo qaadato fe se te ke che she he iyo pe sideeddaa xaraf afka turkiga waa maxay istisnaa'i baa la dhahaa shaqalka haddii ma aragtaaye aan dhehe ficilka uu ku dhammaado kuwan midkood grammarkan aynu joogo geçmiş zamanna markuu yahay da'daas maxay noqonaysaa te ayay isku bedelaysaa maxaan leeyahay halka da'da waxay isku bedelaysaa te goorma markii fıstıkçı shahab midkood uu ku dhammaado tusaale aan ka bixino marka iyagaasna shurada kuwan waa masaxaya shurada yazıyorum halkaan baa ku qorayna mesela waxaan leenahay هذا tamamen silelim bir dakika şura bomboş olsun ne diyelim mesela sen adiga eve guriga ficilkan keenna waa maxay gitmek aadidda gitmek maxay ku dhamaatay te ma ka mid tahay xarfiif sideed ahayd waa xarafka saddexaad fıstıkçı shahab ta maadaama u dambaysa halkaa maxay noqonaysaa eve sida caadigeed waxaan ku dari lahayn dhibicle soo maaha maadaama u eegayna shaqalkan sen eve gittin ma dhihi kartid afka turkiga muxuu ku leeyahay haddaad ba aragto fıstıkçı shahab da'da u bedelo ta yacni maxay kuu noqonaysaa sen eve gittin qaabka ayay ku saxan tahay guriga ayaad aaday sen eve gittin jumlad labaad saddexaad tusaalaha ka bixino ne diyelim mesela biz inaga erken xilli hore ayaan kacnay kalkmak ficilka kicitaanka waa maxay kalk maxaa u dambeeyo
ka baa u dambaysa maxay ka mid tahay sideedii aan sheegnay fistigtishaaba saa daraadeed sida caadiga annagoo shaqalkaa u eegayn waxaan ku dari lahayn the kadibna biis ka bay qaadanaysa biis arkeen kaalka deg lama dhihi karo luqadda turkiga waa qalad muxuu ku leeyahay maadaama fistigtishaabu yimid da'daa bedel oo ta ka dhig maxay kuu noqonaysaa biis arkeen kaalk teg boh xilli horaa kacnay waxaan filayaa in la fahmayo bitaane tusaale kale adinka idin qoro isku daya halka adinka idin deynayaa mesela ne diyelim siz ders ficilkaa keenay çalış maxaa u dambeeya iska ilaali kadibna dhamaystir adigoo ka dhigayo geçmiş zaman waxaan filayaa intaa in la fahmay cashirkeenna halkaa ayuu ku ekaaday